wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha somaliland wasiir abiib cabdi oo ay wehelinayaan barasaabka gobolka togdheer mudane xamse maxamed cabdi iyo suduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalmuysiga gobolka togdheer cabdi muuse jaamac cabdi hindi ayaa kormeer ku tagay saylada magaalada burco taasoo ay ku indhaynayeen sida ay kala socdaan dhoofka xoolaha ee bisha arrafo maadaama magaalada burco ku taalo saylada weyn geeskan Afrika ugu horeyntii waxa halkaas uga warbixiyay sida ay kala socdaan dhoofka xoolaha arrafada wasiirada suduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalmuysiga cabdi muuse jaamac cabdi hindi gobolka togdheer waxa weeyaan maalinta ka dambeysay uu kordhaya si fiican buu u socdaa xoolaha caafimaadkooduna waxa weeyaan ilaahay wuxuu ka dhigay cadi caano intii miyiga joogtay ee yareeda barwaaqadii ilaahay uu bixiyay nimcay noqotay kii halkan la keenayna baruur buu la dilaacaya ma sha Allah way naga aragna habsami socodka iibka xooluhuna gradually step by step aad iyo aad buu wanaagsan yahay barasaabka gobolka togdheer mudane xamse maxamed cabdi ayaa sheegay ujeedkooda kormeerkan ay ku tageen saylada taas ay ku hubinayeen xaaladda saylada iibka iyo sidoo kale xoolaha caafimaadkooda sida daraadeed waxaan u nimi wal hadda inaanu eegno oo indhaynayno xaaladda iibka xoolaha caafimaadkooda iyo sida wax u kala socdaan runtii halkan waxaan kula kulannay xoolihii oo si fiican loo iibsanayo iibkoodu wanaagsan yahay caafimaadkooduna uu wanaagsan yahay runtii dadkii ku soo tabcay xoolahan soo dhaqay waqtiyadii kulaa abaaraha ka soo saaray wixii soo doogay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu barako galiyo wixii u hadhay dadkan waxaan kula talinayaa in loo dadaalo xoolaha iyo dhaqistooda maadaama ay yihiin laf dhabarta dhaqaalaha jamhuuriyadda Somaliland waad aragtaan sida ay u socdaan hawluhu wasiir waa kugu soo dhaweynaa magaalada Burco ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalmuysiga Somaliland wasiir abiib ayaa sheegtay in gobolka togdheer ku caan tahay xoolaha nool halkan ku suganay waa sayladii Burco sidoo sheegay barasaabka Burco Somaliland ugu weynay ama geeska Afrika gobolkii togdheer xoolaha caanka ku ahaa inkastoo waaye badan ay jiraan oo xoolihii aad ogtihiin wixii qabsaday haddana ma sha Allah meel qurux badan bay maraysaa intii noo hadhay buu ilaahay khayrkii iyo barakadii bay noo galiyay waxa soo dadaba u soo asaaqa tagay waadiga aad moodo dadka joogaan qiyaas ka rahaynin intaas oo qof waxay u soo doonatay risq ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay risq khayr qabaydiin galiyo dhamaanteenba in xoolaheena inaynu xanaanaysano in ilaashano oo qof walba halku joogo ka ilaaliyo ayaa nagu waajiba dhaqaatiirta gobolka togdheer iyo kuwa wasaaradda xanaanada xoolaha goob kasta ku sugan oo shalay berberaan soo marnay aad si u shaqeynayeen aad meelay kareen xoolaha u caafimaadinayeen qofkii maanta 60 neef amba 50 neef haysta wuxuu halkii bay taageen waxba iga maydhin waa ma sha Allah wax ilaahay loogu mahad shaakir cabdi axmed telefishinka RTN Burco.